Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal waa Boolimoog Media waxaanu halkan idinka soo gudbinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan dhismaha qadiimiga ee ku yaala dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul. Dhismahan oo ah goob ku cibaadeysan jireen amaba ay u ahayd masraxiyad loo yaqaano Patriarchal oo ahayd boqortooyo Giriig ah ayaa waxa ay dhistay dhismahan 532 ilaa 537 waxaa la qiyaasay amaba uu dhismahanu socday muddo 5 sano ah. Haddaba goobtan cibaadada oo horey u ahayd kaniisad looguna yeeri jiray Xaaji Sofia ayaa waxaa maamulayay qarnigaasi qolyaha Giriiga ah ee haystay madhabta Orthodox-ka. Hase ahaatee waxaa iyaga oo maamulayay 537 ilaa 1204 qolyaha Giriiga Orthodox-ka ah ayaa waxaa kala wareegay amaba kaniisadaasi gacan haynteedii la wareegay boqortooyadii Roomaanka ee la oran jiray oo ahayd qolyaha loo yaqaano Kaatooliga, kuwaas oo maamulayay iyaguna waqti aad u dheer oo ahaa 1204 ilaa 1261. Haddaba goobtan oo asalkeedu ay dhiseen qolyaha Giriiga ee Orthodox-ka ah kadibna ay kala wareegeen taariikhda aanu soo sheegnay oo ay maamulayeen qolyahan Talyaaniga ee ah oo haysta madhabta loo yaqaano Kaatooliga ayaa waxa ay ahayd boqortooyadii Roomaanka ee la oran jiray Constantinople ayaa waxa ay iyaduna maamuleysay laga soo bilaabo 1204 ilaa 1261 ilaa mar dambe oo ayadana ay dib ugu soo laabteen qolyihii Orthodox-ka ee Giriiga ah 1261 ilaa 1453 ayay haddana dib u maamulayeen qolyihii Giriiga ahaa ee kasoo jeeday oo ahaa haystay madhabta Orthodox-ka. Haddaba Talyaaniga iyo Giriiga oo laba boqortooyo kala ahaa oo midba mar uu meeshaasi soo maamulayay xilliyo kala duwan iyagoo kala haystay madhabta Orthodox-ka iyo Kaatooliga taasoo ay isugu tegayaan diinta Masiixiyiinta amaba Kiristaanka ah ayaa waxaa dhacday haddaba in dowladdii Cismaaniyiinta ama boqortooyadii Cismaaniyiinta xilligii 1453 ayay gacan haynteedii la wareegeen iyaga oo xilligaasi boqortooyadii Cismaaniyiinta ay ka dhigeen goob cibaado oo masjid ah. Goobtaas masjidka ah ayaa waxa ay ahayd 1453 waxayna masjid laga soo bilaabo 1453 ilaa 1931 ay ahayd masjid halkaasoo ay masjidkaasi ay gacan hayntiisa awal ay iyadoo madhabta Kiristaanka meesha lagu xusi jiray u bedeleen in lagu cibaadeysto amaba lagu xuso diinta Islaamka qolyihii Cismaaniyiinta ah. Haddaba dowladdii dhexe ee Cilmaaniga ahayd ee 1931 maamuleysay dalka Turkiga ayaa maxkamadda sare dalkaasi waxa ay goobtaasi ka dhigtay meel museum ah amaba madxaf ah oo taariikh qadiimi lagu xuso waxyaabaha qadiimiga. Hay-adda u qaabilsan qaramada midoobay taariikhaha UNESCO ayaa waxa ay goobtan u aqoonsan tahay goobaha taariikhiga ee farakutiriska ee ku yaala dalkaasi Turkiga. Haddaba Xaaji Sofia oo ay waagaasi dadka Kiristaanka ugu yeeri jireen magaca ayaa dadka Turkiga waxa ay u yaqaanaan Aya Sofia. Magacaas ayaa Turkida meel kasta ee dunida kaga nooshahay ay ugu yeeraan goobtani. Haddaba sanadan aynu ku jirno 2020 ayaa waxaa nasiib wanaag madaxweynaha dalkaasi Tayyip Erdogan waxa uu ka dhigay masjid iyadoo ay noqotay in ka badan 800 oo sano kadib meel masjid ah oo si toos ah loogu cibaadeysto ay qolyaha muslimiintana gacanta ku hayaan. Dood fara badan ayaa wadamada reer galbeedka amaba wadamadii Giriiga iyo Talyaaniga oo gacan ku haynteedii soo hayn jiray qarniyo fog meeshan dhisay ayaa dood badan ka dhaliyay. Hase ahaatee waxaa gaashaanka u daruuray madaxweynaha dalkaasi Turkiga Tayyip Erdogan isaga oo ku adkaystay go'aankiisa inay meesha tan tahay meel ku taala dal Islaama amaba duni Islaama loona baahan yahay in lagu xuso rasuulkeena subnaa iyo Allaahina abuurtay.
haddaba goobtan taariikhiga ayaa waxa ay tahay meelaha uu Turkiga aadka loogu soo dalxiis tago daawashadeeda. Daawadayaal waa Buulmoog Media.